Kim Jong-un oo loo maleynayay inuu geeriyooday ayaa markii ugu horeysay 20 cisho ka soo muuqday goob fagaara ah. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxa uu ka soo muuqday fagaare dad badan isugu yimaadeen oo ku yaala dalkaasi Kuuriyada Waqooyi sida ay weysay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Kuuriyada Waqooyi. Wakaaladda wararka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano KCNA ayaa tilmaamtay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu daafuray warshadda sameysa qalabka bacriminta beeraha. Waxay tilmaamtay in dadkii ku sugnaa warshadda ee ka qayb galay furitaanka ay aad ugu farxeen markii ay arkeen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un sida hadalka u dhigtay. Ka soo muuqashadiisa fagaaraha ayaa ah tii ugu horeysay tan iyo 12 Abriil, waxayna taasi sababtay in caalamka la isla dhex maro warar ku saabsan in xaaladiisa caafimaad aysan wanaagsaneyn, halka warbaahinta qaarna ay qoreen in uu geeriyooday. Kim ayaa soo baxay markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ka qaybgalka munaasabad sanad walba lagu maamuuso sanad guuridii ka soo wareegatay dhalashada awowgii oo ku beegneed 15 bishii Abriil. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un weligiis kama uusan baaqanin munaasabadda xuska awowgii. Taas ayaa keentay in warbaahintu ay hoosta ka xariiqdo xaaladiisa caafimaad. Kuuriyada Waqooyi oo ah dal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaas ayaa waxaa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimaad ee Kim. Waxaana sidoo kale maalmihii la soo dhaafay soo baxayay warar kale oo sheegaya in hogaamiyaha dalkaas uu galay qalinanka wadnaha ah. Waxaa sidoo kale soo baxayay warar kale oo tilmaamaya in Kim uusan nooleen. Sanadkii 2014 ayaa Kim la waayay muddo 40 cisho ah, waxayna taas keentay in wax la iska weydiiyo halka uu ku sugan yahay. Sidoo kale xilligaas waxaa soo baxayay warar kale oo sheegaya in la afgambiyay, laakiin maalmo kadib waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalkaas, gaar ahaan warbaahinta ku hadasha afka dowladda. Haddii ay dhacdo in Kim uu meesha ka baxo sida ay doontaba ha ahaatee, ma cadda cidda bedeli doonto, inkasta oo la tilmaamo in walaashiis ay bedeli karto. Kim Jong-un waxa uu xilkaas ka dhaxlay aabihii oo sanado badan hogaaminayay dalkaas, waxaana muuqata in dhaxalka dhanka xukunka ee dalkaas uu yahay mid uusan cid kale damac ka geli karin. Gabadha ay walaalaha yihiin Kim Jong-un oo lagu magacaabo Kim Yo-jong ayaa u muuqata qofka iska leh dhaxalka xukunka dalka Kuuriyada Waqooyi, maadaama ay walaalo yihiin aadna ay ugu dhowdahay walaalkeed. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in ay saameyn ku leedahay xukunka dalka. Taliska dalkaas ayaa ah mid aad looga boqo, halka shacabkuna ay dunida inteeda kale ka xirxiran yihiin, taas oo yareynaysa wararka laga heli karo gudaha dalkaas.